بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام الأمان ولا عليه قالي قيمها بدن رمضان مبارك ميل والبلد جوكتان إن فرحتي عافمت قوة الصومة كنا أفرا ولا عليه قالي وايدي ما تعيننا دمانتي بسيدة قروح بدنا يجوا حرنتين وحرجينا أنا فرحتي عافمت وذا قبطان أنت حنوصنا يسي إلهي عافية أنت عافمت قبت إلهي سبحانه وتعالى هؤسياديو إلهي هنلقى أقبله صوم كصلاة إيا عماشيسة asxaabtayda qaaliga ah waxaa inoo wadaa maantay video ku saabsan ramadaanka afurka sida u diyaarsaday iyo shaqo yar aan guriga ka qabsaday insha Allah soo dhawaada walaalayga qaaliga ah waa idin mahadcelinaa dhamaantiin sida qurux badan ay igu xirantiin jasaakumullahu khayran asxaabta cusub ee igu soo biirtay waa idin soo dhaweynayaa janalka waa janalkiina haddii janalka ku cusubteen waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo dhahdid gambaleelkana oon ka dhigatid ugu horeyntii dhar ayaan soo fujiyay iyo qalalay dharkan ayaan laalaaba insha Allah oo shaqada ka bilaabaya kadib ayaan hagaaji doonaa fadhiga qolalka waan soo hagaajistay insha Allah marka dharka dhameeyo kadib ayaan fadhiga iska hagaajinaa markaas ayaan bilaabi doonaa insha Allah afur sameys asxaabtayda qaaliga ah soo dhawaada idin leeyahay waxa u mahad celinayaa gabdhaha walaalahay ah oo iga soo codsadeen in aan soo celiyo rootiinka insha Allah aad u mahadsantihiin walaalahayga qaaliga ah waa dhiirigelin gabar kasta dhiirigelin u yahay marka gabar walaasha oo wax qabanaysa aragtid adigana waxa ku galaayo hami adigana inaad wixii qabatid oo sameysid insha Allah aad u mahadsantihiin gabdhihii iga soo codsaday inaan soo celiyo walaalahayga qaaliga ah jasaakumullahu khayran insha Allah inkastoo aan fiidiyoda bariyahan directly aan ka dhigin oo fiidiyoda aan si toos ah maalin kasta aan u soo gelinin haddana waan jeclahay markasta soo geliyo laakiin badana waqtiga ayaan ii saamixin waan idinka raali gelinayaa taas insha Allah fadhiga ayaan iska xaqi doonaa miiska waan soo tirtiray kuraasta waa soo jafay fadhiga iska xaqaya insha Allah miiskana waan ku soo celiyay asxaabtayda qaaliga ah kitaabkan halkaas aan saaray qofkii fadhiga soo fadhiistay inuu iska akhristo miiska kaleeto ayaan soo tirtiray waxaan sii saarayaa geedihii cuntada la saaran lahay inkastoo waqtiga dhaweyn laakiin waa sii diyaarsanayaa caruurta yararka TV la iska sii fiirsanayaan ayaga inta ku mashquulayaan masha Allah carfisaas ku buufinaya carfisadan aad u jeclahay mudhil al dhaha aad u caraf badan tahay wax yar cataraan ku sii daray masha Allah carafteeda kama go'ayso guriga bariyo aad u sii carfaysa marka ayadii uunsi isku la dartay guriga masha Allah lagama sheekeyn kara carafteeda masha Allah sidaas guriga soo kala toosiyay fadhigii qolalka iyo waa soo hagaajiyay kulli insha Allah hadda waxaan bilaabanayaa inaan karsado afurkii insha Allah ujeedada aliga qaaliga ah fadhiga saas oo soo kala toosiyay nadiif aan ka soo dhigay caraf masha Allah kala iska arag hadda waxaan bilaabi doonaa insha Allah inaan afurka kariyo waxaan karinayaa afur fudud insha Allah sambuus ma sameey doona maanta iyo madaasi bur yar aan sameynaa burka yarka oo sokorta bis la sameynaya iyo shawarma iyo waxaan sameey doonaa insha Allah caruurta waxaan u sameynayaa bajiya ama baradhada mid wareeg loo jarjaraayo aan u sameynaa insha Allah salad yar pasta yar macaroni aan karinayaa insha Allah afurka iyo cashada hal mar le anaga sii wada karsaneena jikina ku soo laalaabto ma jeceli ilaa saxuurta waxaan soo qaatay weel waxaan ku shubanayaa 2 koob oo bur ah waxaan ku darsaday cusbo yar waxaan ku daray plain yogurt waxaan ku daray leebito iyo sokor hal qaande wax yar cusbaa ku daray biyo qantacan ku qasaa insha Allah waa isku garaacaya waa burka sokorta ee yararka kuskuuska waaye aan ku soo aragteen fiidiyowga bilowgiisa burkaas ayaa qasanaya insha Allah markaan qasto burkii bacaa kor ka saaraya insha Allah kadibna waan dhiganayaa haddana waxaan qasanaya insha Allah tortiilihi ama burka shawarmada ayaan qasanaya insha Allah waxaan ku shubanaya 2 koob iyo bar bur aan ku shubanaya insha Allah waxaan ku darsanayaa bakin cusbo iyo hal qaando sokor
ayaan ku darsanaa insha Allah. wax yar saliid ayaan kusoo dari doonaa insha Allah. waa isku qasayaa asagana si fiican u xashayaa. waxaan rabaa inuu smooth ii noqdo. kadibna waxaan kor ka saari doonaa insha Allah bac waan dhiganayaa asagana insha Allah. shayga saddexaad aan qaban doono insha Allah waa chickenkii aan ku sameyn lahaa shawarmada waaye. chickenka waa soo qaaday marka ugu horeysa waan dhaqayaa. waxaan ku dhaqayaa qalan ku dhaqayaa insha Allah. waxaan kusoo riday baaquli qalka kusoo dhaqayaa si fiican. kadib ayaan kasoo raacsiinayaa biyo caadi ah. markaasaa jarjarana insha Allah. si yar yar inaan u jarjaran rabaa shawarmada chickenkeeda inaan si yaris u jarjaran rabaa. anigoo si kale u sameynayana hore waa idinku soo geliyay, laakiin hadda si yar aan rabaa inaan u jarjaro afur aan ka dhigano. asxaabteyda qaaliga ah markaa chickenka aan soo dhaqay soo nadiifiyay oo biyo aan soo raacsiiyay kadibna waan jarjaray insha Allah. waxaan ku dari doonaa spicy xawaajiga isku dardarka hore u soo geliyay. waxaan ku darayaa sactar yar, waxaan ku darayaa filfil, waxaan ku darayaa xawaaji dhudhuub kaligiis wax yar ah. waxaan ku daraa paprika, haruud, rayka powder ah. waxaan kaloo ku daraa jab maraq digaag waxaan ku daraa plain yogurt, waxaan ku daraa toon, waxaan ku daray soya sauce, waxaan ku daraa idinka badiya cafwan liinta shiidan aan ku daray insha Allah. isku qasabaca asigana kor ugu xiraaya nus saac. waxaan sii gali doonaa fridge-ka. haddana waxaa jarjarana insha Allah baradhada bajiyaha ah. meeshan bajiye la dhahaa, bajiye laba nooc, bajiye Soomaali iyo bajiye baradho. marka baradhadaas caruurta u jarjara insha Allah. baradhadaas ayaa afurkana ugu daraaya. baradhada warwareega u jara insha Allah. kadibna waan soo shiilanayaa, laakiin waan soo fiiqayaa baradhada. waan soo jarjartay, waan soo dhaqay. waxaan ku daraa insha Allah qal ayaa rabaa inaan kor uga daro. qalka oo ujeedin 5 litrkaas waa qalkaas wax yar uga daraa. waxaa kaleeto aan ku darayaa insha Allah wax yar cusbe waxaa kaleeto ku darayaa paprika. masha Allah baradho aad u macaan qataray kusoo baxaysaa. hadda waxaan daartay mashiinkaas ku dubayaa. marka aan afurka karinayo mashiin hadhihin kuukarka oo korontada gaaska kulli waxaa cafiimala waxa dhan waa isku wada boobsiya because waqtiga inuu iga dhacaan diidaya. baradhada halkaan aan ku shiilanayaa insha Allah. baradhada waa ujeedaan masha Allah sidaas ugu shubtay qaleelkaas rabay inay noqoto, laakiin said ma soo adkaanin. masha Allah waxaan ku shubanayaa qaybtii labaad baradhada. kadibna waa daboolanayaa. oo ujeeda marka paprikadii aan ku daro baradhada masha Allah dhanaan iyo kala qurux badan ay kusoo baxaysaa. dadka waxaan soo saartay saliid. waxaan shiilanayaa burka yararka ah ku shiilanayaa walaaliga qaaliga ah. dadku wuu ka gaabsan yahay. marka dadku ay ka gaabsan tahay saliida waxaadana way ku bislaanayaan masha Allah. kalar qurux badan way ku noqonayaan, laakiin dadka haduu dheereysan yahay wuu ka gubayaa wixiina kuma noqonayaan wax bislaaday oo cajiin aan meesha soo baxayo masha Allah. qaantada isku dhahayaa sidii burkii oo hoos ugu dago oo kor iyo hoos golden qurux badan oo ugu noqdo masha Allah. kuma sameynayo fur gacanteyda ku sameynaya walaaliga qaaliga ah. waan idinku sabta qaybtan ka bixiyo sida gacanta ugu sameynayo. gacanta farta iyo suulka dhaxlaan ka soo bixinaya. qaantan ku jaraya marka sidaas ugu sameynaya. qaantadana waxaan soo dhex gelinayaa biyo saliid soo dhex gashay kartaa, biyo soo dhex gashay kartaa insha Allah. waxaan dadka aan soo saartay intii burka aan dubayay chickenkii shawarmada. chickenka wixiisa dhaw u dhameystirnaayeen. waxaan soo saartay dadka masha Allah dhacanka uu soo dhuuqay waa ujeedaan. waan ka soo damiyay asagana. hadda waxaan sameysanayaa tortilihii ama burkii shawarmada ama cajiinka waa kuskusaya insha Allah. kuskuskaas yararka ka dhigana insha Allah. marka soo kuskuuso kadib ayaa fidsanaya. dabka waxaan soo saartay dabka bira soo saaranaya insha Allah. laakiin dabka hadda waxa ii saaran sokorti ii saaran aan burka ku dari lahay. soo bakeeri si fiican aan u buuxin oo sokor ah iyo bakeeri halfkiisa oo biyo ah ayaa isku soo daray. dabka ii saaran yihiin markii sokorta ii soo dhalaasho oo burka aan ku daray kadib ayaan tortilaha birta saara doona dabka oo ku duwanaya
sokortii way soo dhalaashay oo ujeedna kalarkeedu uu soo bedelay waxaan ku shubayaa burka waxaan kula shubi dugsiga asoo dabka saaran lee burka kula shubi doona insha Allah kadibna waan gidgidinayaa markaa gidgidiyo oo sokorta si fiican dhacanka u sii dhameysato ayaan ku shubayaa weel ma sha Allah markay soo qalashaan ku dhexe qatar ayada ku soo baxeyso kaala iska arag ah waan soo gidgidiyay waxaan ku soo shubtay baastamirkaas waxaan rabaa inay isii qabowdo dabkan waxaan soo saartay birti canjeero waxaan dibanayaa tortilahi ma sha Allah ujeedaan dabku ka gaabsan wax saliid lagu dubaayo dabkan wuu ka gaabsan yahay markuu dhankaas ka bislaado dhanka kale uu gidi doona insha Allah asagana sidaas uu soo dibanaya wax badan ma ahaynba 10 xabale oo ahay laba bakeeri bur ahlan qastay sidaas oo soo dibanaa walaalihiga qaaliga ah insha Allah waa soo dhameysanaya asagana markaas soo dhameysto ayaa isku soo laabanayna insha Allah markaas ayaa shawarmada wada sameey doona insha Allah taala walaalihiga qaaliga ah shaqada waxa kale ayaa sii qabana insha Allah qaxwada qasta ila ka bilaabay wax kan iska cabitaankii markaan jikada soo galay labaas waa inaan ku ugu horeysiisaa cabitaanka iyo qaxwada hadda waxaan sameysanayaa insha Allah shawarmada sidaas u marmarinaya mayonnaise waxa isku soo qasab mayonnaise waxa ku soo daray tomato iyo tomaatada ka jabta iyo waxaan ku soo daray wax yariis oo sokor ah halaas isku soo garaacay sidaas u marinaya shawarmadii kadibna waxaan saari doonaa insha Allah salar iyo basal cad aan isku soo jarjaray waxyaabo badan kuma dardari doono waayo caruurta cunayaan caruurta qudaartaas badan ma sii cuni karaan marka waan ka yaray qudaarta salarkii iyo chickenkii iyo mayonnaise-kii iyo tomaatadii isku soo qasbis halaas marinaya sidaas isku soo laalaabaya saxanka soo saaranaya ma sha Allah waa afur yar oo fudud ma sha Allah sambuska uga maarmeysid maalin kasta sambuska waa laga xiisa dhacaya maalin kasta lama cuni karo marka waa inaan mar dab loo siiyaa oo wax kale lagu tuuraa ma sha Allah dadka isku mid ma ahan dad jecel soonka maalinta oo dhashto ilaa dhamaana inay sambuska cunaan asxaabtida qaaliga afurka waa soo diyaarsaday ma sha Allah sidaas quruxda badan ayuu iigu soo baxay waa afur yar oo fudud ما شاء الله wax badan ma karinin ma sha Allah halahana nagu filan alxamdulillah inta haysata ilaahay u siyaadiyo inta aan haysanin ilaahay subhanahu wa ta'ala irsaaqad wasi'a oo xalaal ah ilaahay ha siiyo ma sha Allah asxaabtida qaaliga ah shawarmadii bajiyihi عفوا shawarmadii burkii yaraay baradhadii bajiyaha aheeday salarkii aan soo jarjaray ukuna biyo ku soo karkari ayadana idma tusin ukunta ayadana waan soo jarjaray ma sha Allah basta macaroni yaraan soo kariyay cheese kor uga daray ayadana ma sha Allah ujeedani kasar caleen yar kor uga daray burkii sokorta lahay waa kana ma sha Allah bastada ما شاء الله بس مكروني رواية هلب شيدن إن قدرنا كسو كريه كدبنا جيسان كر وقشب وكسو هوري ما شاء الله سلس كل واحد بدنا يبصوا بحذاي برد أبي وجيدان أيضا أن قطري بابريكا ده ما شاء الله كل كاس كل واحد بدنا يبصوا بحذاي طماطة ده لو سو ديارية ما شاء الله لقوني لهاي أصحابتي تقالي هذا ومحسنتي دمانتي بس السلام عليكم.